waxaad ka wadataan subaxaan qiyaamada dhaqankagii subxaanka. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسر دوادا برنامج كيني أي نسود دينا ويجي وتقيبتي هو جوه الرئيسي أو ها برنامج كويجي إنه مدحوينا موسى بيح عبدي مدحوينها السومالي الآن أو نقدم مدحوينه وجبنا اللومية مدحويني اللومية ترى وجبنا أقويها كدل كيسة لما كان عندك تلاقوا الصين تلوين أي أسود شديان مدحوينا موسى بيح أو أي نويجي هو السود دينا خبرة فربضن أو aqoon-yahana oo iyagu markaasi ay aad u kala fogaadeen isla markaana uu diiday inuu wax talaa ka qaato ayaa maanta waxaynu ku eegaynaa qaybo ka mid ah bulshada oo iyaga laftooda aqoon-yahana haddaba kuwan ugu horeeya oo ah aqoon-yahanka dalka isla markaana mid ka mid uu yahay shiikha ugu caansan ee odhan karno Somaliland isla markaasina badanka bixiya talooyinka siyaasadeed ee dalka madaxdii soo martay Somaliland aad ugu jeedin jiray talooyinka nasteexada ah iyo nin ka mid ah garyaqaanada Somaliland oo isagu ahaa mid ay madaxweynaha aad isku dhawaad jireen in badanna ku difaacay xeerarka iyo shuruucda xisbiga kulmiye dhexdiisa ayaan imika eegi doonaa oo labadooduba ka taagan faramaran inuu madaxweynuhu wax talaa ka qaato amaba uu xitaa yeelo inuu la kulmo haddaba ka sii darana isaga abukaatuhu amaba garyaqaanku marba saa u taqaano isagu waxaaba ku doodaya madaxweynuhu inuu jabiyay aayad munasala oo ka mid ah kitaabka quraanka kariimka bal ila daawo war kabinetkan maanta joogo wax ka bedel sida waxba inoogu shaqeynayaan ayaa runtii madaxweynaha leen waxaan ku leenahay madaxweyne ayu giliyadii kala wad ka shaqeyn doontaa waxa la isku haynaa waxa weeye waa diintii islaamka waa shariicadii islaamka ma aha siyaasad xisbiga dhexdiisa ma aha dana gaara ma aha wax kale oo naga dhaxeeya aniga iyo madaxweynuhu ma jiraan waa xeerka uu saxeexay ee uu dhaqan geliyay ayaan horena uga horim imikana aan hortaagnay oo aanan ogolayn awoodeyda markay dhaafto suuratu nuur iyo madaxweynahan isku eegaya suuradda uu ku gafay ee uu ku xadgudbay waa suuratu nuur muwaadin marka aad dhagaysato ama aad daawato sida ay u hadlayaan amaba sida ay ula yaabeen qaabka uu madaxweynuhu wuxuu agaasimayo waddankana majaraha ugu hayo aqoon-yahanka tirada badan leh miyaanay kugu soo dhacaynin erayadii xasan sheekh muumin ee ahaa ruuxadii la darto darajadii la saariyo ruuxadii la darto darajadii la saariyo ilkii daryeeli waaya dabdhaxmooday weeye ilkii daryeeli waaya dabdhaxmooday weeye waa tahay markaad daawato fiidiyowgan waxaa ninkani markii hore ahaa murashax isagu markaasi madax bannaan amaba ka madax bannaan kulmiye oo ka mid ah murashax xusbi kale oo la yidhaahdo ucid muddo dheer kadib iyo cadaadis badan oo ku dhacay iyo in magaranaysaa si weyn loogu qanciyey inuu u tanaasulo madaxweyne muuse biixi oo markaasi ah murashaxii kulmiye ka yeelay waxaanu noqday inuu yidhaahdo muuse ayuu geelu isuukaya jira kabacdina waxa uu la galay kaambeynkii doorashada waa marka aad xasuusanayso eed odhanayso madaxweynuhu halkudhigii ahaa madaxweyne dad hortayaad la showrtaa ayaad kala shushubataan aan kuu sheeka dhaafee shiikhaagu waa kuma jamaal cali xuseen oo aad ogeyday inuu yidhi muuse biixi cabdi oo markaasi murashaxa ayuu isuukaya jiraa geelu ayaama kadib maxaa dhacay anigoo u diyaar garoobay inaan imaado ayaa horta kaadhka layma keenin habeenkii anigoo halkan maraayo xaflad waxa ka jeedinayo maxamed kahin gaadhiisoo ku jira iga dhex yeero hal kaadhi ila qaado daana waxaan ku yidhi garab dhan baan ahaayo xisbiga wuxuu kusoo biiriyey miyaanad kaadhkii anigii garabkii dadkayga u hayno markuu yidhi maya de waxaan ku yidhi xabadaas umaan ku haya markuu yidhi waan idhi de dadkii ku odhan kara mayaana meeshii baan tegey idinkiina waan idinka tegey iyagan la maaragtay la joogaya